السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبتنا قيمها بدنا كحران channel كددوينها يوتيوب كسر هذا مقال كين مانتا واتهاي هدبا مقال كان جديسة وحنو كجا هذا دونا قصة جبر فنانة أو كهستي حفلة أروس اوكي او maxaa ku jaban arintaas habeen walba fanaaniintu aroosada ka bariisaystaan oo shidaane hay ka micna tahay fanaanada aroos ka heestay no my brother arooskaad moodaysid maaha waa aroos jin jin a'uudu billahi min aljin oo haya kaaliniyo fanaaniin jin miyay waayeen rappers jin amba kuwa dhaanteeyo jin ama soo ka haystaan maani waayeen fanaaniin jin hase ahaatee fanaanadani waxay ahayd fanaanad aad u cod macaan aad loo jecel yahay marka fanaaniinta aad ka codka macaan ee Soomaalida ee muuqaalkan daawanaya waxaan leeyahay bal muuqaalkan dhamaysta qisadan la mid ah inay hore idin soo martayba macquul ah oo ka heesteen xaflad aroos oo leeyihiin qolyo jin ودعذر رنتي ذولا يا بدن أو كدعذي ميد كميده ودمضة عربته وأنا دعذر رنتي ودمضة عربته عان كده نقطي إمك يا هاتنا كور ميد قصة عاسي أي نجود قلنا فضلا هدي أذكر صوتها الجن كده وينها وحرجيني يا إن ذكر كل مدون المقال كحيس قلين دونه مركع كوسو سبسكرايب صار صدق كلنا مقال كلايك صار هاي نجود قلنا قصة عن ما أنت يدين سيدو وحنا الجنال كده وينها سبسكرايب صار أو كوسو kusoo dhawaadayal markale muuqaalkeena maanta hadaba dhacdadani waxay ka dhacday dalka yar ee Carbeed ee lagu magacaabo Kuwait dabcan sidaynu dhamaanteen wada ogsoonahay xafladaha aroosyada waxay ka mid yihiin waqtiyada ugu quruxda badan ee aadanuhu qaato maalmahaasi waa maalmaha ay kulmaan ay waqtiyada quruxda badan wada qaataan lamaanayaashii iska fureegi jiray iska gaadi jiray sidoo kale xafladaha aroosyada waxa ku kulma ehel qaraabo asxaab dadka qaar ayaa waxay jecel yihiin maalmahaasi arooska inay kharash aad u tiro badan ku bixiyaan xafladooda arooska si ay xusuuska ugu noqoto gawaari qaali ayaa lagu galbiyaa guryaha ayaa aad loo sharaxaa hadii guryo lagu qabsanayo hadii kalena hoteelo aad u qurux badan baa la raadsadaa fanaaniin la yaqaan oo xafladaas shidayana waa loo yeedhaa caadadani in aroosyada xaflada loo dhigto waa caado soo jireen ahayd oo aan ku koobnayn Soomaali iyo Afrikaan oo kaliya waa caadooyin ay ka sameeyeen yihiin aadanuhu haddaba balka waran xafladahaasi hadii ay jinku u dhaxraaciyaan aadanaha kuna keenan tigidhadii xafladda arooska isla mar ahaantaana ay ku dhahdaan aroos ayaanu qabsanaay xariifad habeenka sabtida inagala soo qayb gal balse xafladii aad u diyaar garowday ee aad ka ugu labisatay aad islahayd bal caawa ku soo qaado waqti aad u qurux badan aad ugu tagto waxyaabo aad ku cabsi geliyo aad ula yaabtid yacni waa arrin argagaxeeda leh okay hadaba dhacdadani horaha inagu socono dhacdadani waxay dhacday sanadku markuu ahaa 1997 miilaadiga waqtiyadaas dabcan xafladaha aroosyada 90% hadii aanay kaba badnayn waxa lagu dhigan jiray guryaha ayaa aad loo qurxisan jiray xataa hadii aanu qofku lahayn guri aad u qurux badan dadyoga qaraabadooda amba asxaabtooda amba jaarkooda guryaha quruxda badan leh ayay xafladaha arooska ku dhigan jireen dadku ayadoo isla mar ahaantaana guryahaasi aad loo qurxiyay aad loo sharaxay bacafaanta ahna laga soo ayaa sidaas guryaha loogu dhaxbaashaali jiray balse nasiib darro waqtigaas dadka badankoodu sidii dibadda u wareegayeen ayuu waqtigu kaga dhici jiray sababtoo ah guriga hadduu yar yahay dadka oo dhan wada qaadi karo balse waqti xaadirkan 90% haddii aanay ahayn 100% dadku waxay xafladaha ku qabsadaan hoteelada quruxda badan istiil wali guryaha waa lagu qabsadaa xafladaha aroosyada balse waxa loo batay haatan hoteelada xoogay haatan waa la ilbaxayo jawiga waa la bedeshay waqtiyadaasi aad loo ma aqoon DJ aroosyada kala kiciya balse waxa jiri jiray kooxo fanaaniin oo guryaha loogu yeedhan jiray inay xafladaha aroosyada ka kala kiciyaan haddaba waqtiyadaasi ay qisadani dhacday waxa gudaha dalka Kuwait aad caan uga ahayd fanaanad lagu magacaabi jiray Nuura fanaanadani waxay ahayd gabadh aad u cod macaan sidoo kalena waxay wadatay koox dhinaca muusigada oo mid waliba u qaabilsan yahay tumidda qalab gaar ah waa tahay sidaan hore soo sheegay gabadhani waxay ahayd gabadh aad u cod macaan sidoo kalena kooxdeedu waxay ahaayeen koox aad u diyaarsan codkeedu xataa gudaha dalka Kuwait waa u dhaafay oo waxa looga yeedhan jiray wadamada kale ee jaarka ee Carabaha yacni waxay ahayd gabadh waqtigaasi aad caan u ahayd haddaba waqtigaasi gabadhani waxay dadku aad ugu xiiseyn jireen codkeeda aad u macaan sidoo kale waxay ku jeclaayeen
shakhsiyadeeda oo ahayd shakhsiyad aad u qurux badan qof waxay ahayd akhlaaq leh oo yacni ixtiraam mudan sidoo kale waxa uu ahaa gabadha talentkeedu aad u ballaadhnaa eriyada heesaha ayada ayaa qorin jirtay laxanka ayada heesaha saari jirtay taasi ayaa keentay in xataa laga soo dalbado wadamada khaliijka ee ka baxsan Kuwait haddaba habeenada kamid ah ayaa fanaanadani lagu magacaabo Nuura iyo kooxdeeda ayaa waxa xaflad aroos ka soo codsaday oo martiqaad ugu fidiyay ayada iyo kooxdeeda mid kamid ah qoysaska reer Kuwait haddaba qoyskani iyo fanaanadii markii ay ka wada hadleen arrinta dhinaca kharashka qoyskii waxa uu sheegay in ay siin doonaan lacag ay cadadeedu dhan tahay 500 oo diinaar yacni waa lacag waqti xaadirkan kor u dhaafaysa 1500 oo dollar waqtigaasina lacag intaasi leeg inuu fanaani xaflad aroos kaga qaato yacni waxay ahayd arrin aad u cajaa'ib lacag aad u badan ayay ahayd markiibana fanaanadani iyo kooxdeedii codsigii kamaanay labalabayn oo markiiba way aqbaleen si degdeg ah haddaba kooxdani fanaaniinta ah ayaa waxay u ambabaxeen gurigii looga yeedhay oo ku yaalay magaalo lagu magacaabo Sabaaxiya gurigu waa guri weyn oo aad u qurux badan qurxinta iyo bilicda ka muuqataba adigoona gudaha soo gelin ayaa dareemi karaysaa gurigani inuu yahay guri munaasabad aad u qurux badan ay ka dhaxayso albaabkii guriga markii ay sidaas ugu galeen waxay ugu tageen dad aad u tiro badan oo labistay aad u qurux badan nuurka baxaya alalaaska dhacaya caruurta yaryar ee faraxsan ee meesha ciyaaraysa micnaheedu waa aroos si qurux badan loo abaabulay Nuura iyo kooxdeeda fanaaniinta ah oo ka koobnaa 6 ilaa 7 xubnood ayaa gurigii waxay gaadheen saacadu markay ahayd cabaaro 8 iyo barkii isla markiiba waxay galeen qol gaar ah oo loogu sii talagalay inay ku sii dhex diyaar galoobaan ay isku sii hagaajiyaan ay istababusheeyaan ay isku sii diyaariyaan xafladda adigu ugu dambeyn Nuuri asxaabteedii markii ay isdiyaariyeen ay gaadhay saacadu cabaaro 10 iyo barkii ayaa waxa la bilaabay tamashlayntii iyo xafladii arooska fanaaniintii ayaa waxay tageen meeshii lagu talagalay inay ka tumaan marba marka ka sii dambeysana dadka arooska imanayay waa ay sii badanayeen aad ayay u sii badanayeen 11 habeenimo saacadu markii ay gaadhay gurigii dad ayaa soo buuxiyay ilaa dibadda intaasi waxa dheer caruuraha yaryar ee aadka u tirada badan ee dadka hoos yaacaya meel walba gurigii waxa ka baxaya iftiin dharaar ayaad moodaysaa gurigii lights-ka waaweyn ee lagu soo xidhay aweed gurigii waxa isqabsaday mashxaradda Nuuriya kooxdeediina waxay guda galeen tumidii xafladda heestii ugu horeysay bilaabeen oo dhameystireen mar walba ay heesta dhameeyaana familkii arooska ayaa imanayay oo salaamiyay fanaaniinta oo mahad celinayay sida quruxda badan ay ugu shideen xafladda heestii labaad ayay sidoo kale dhameeyeen sidii ayay ku wadeen mararka qaar dadkii shacabka ayaa ka dabanayay heesa qaar ay rabaan inay u qaadaan ilaa adigu laga gaadhay 12 habeenimo haddaba saacadu markii ay mareysay 12 habeenimo ayaa Nuura waxay bilowday inay balyaro nasato ay biyara cabto isteerada jiso ay waqti yara qaadato xoogay ay yara wada sheekaystaan kooxdeeda haddaba waqtigii ay Nuura nasiimaha siyar ku jirtay waxa ku soo dhawaatay mid kamid ah kooxdeedii la socotay deetana waxay tiri Nuura meeshan wax qalad miyaad ka dareemaysaa deetana Nuura ayaa waxay ku jawaabtay qaladka sheegaysan wuxuu yahay waa caadi jawi aad u qurux badan baynu ku jiraa deetana gabadhii ayaa waxay ku tiri dadkana inoo imanayna salaamiya xataa wax qalad miyadan ka dareemin deetana waxay ku jawaabtay may maxaa qaldan bal sheeg anigu fanaanada heesaysa oo heesaa ku mashquulsan baan ahay waxaan oo dhan ay muuqdaan bal day sheeg waxa si aan muuqanada aragti muxuu yahay gabadhii ayaa waxay tiri dadkana inna salaamiya dabnadoodii iyo gacmooduba waa aday geed ayaad moodaa jirkoodu inuu qodxalayaad moodaaba Nuura ayaa isku yara baqdo shaytaanka iska naartay oo tiri a'uudu billaah wa maxay waxaan gabadhan ka sheekeynayso dadkii ayaa sidaas u fiirsay indhaha marsay dad caadi ah ayay muuqdaan deetana Nuura ayaa gabadhii waxay ku tiri shaytaanka iska naar beel qaldanba wax laga toosay ummadda waa caadi gabadhii ayaa tiri okay way iska mustay hase ahaatee gabadhii ismaani dejin oo cabsideedii waa sii korodhay oo ayadu intaas wuxuun bay u fiirsanaysay fanaanadani Nuura ayada laftirkeedu shaki weyn ayaa galay hase ahaatee waxay isku dayday inay isdhaafiso aanay wax cabsiyaad yareysiin tiimkeedani hawsha la wada iyadoo isla mar ahaantaana uga baqaysay haddii ay dareemaan inuu khalkhal ku iman doono hawsha ay wadaan haddaba xoogay ku dhawaad saacad kadib Nuura iyo kooxdii la socotay ayaa waxay dareemeen cabsi aad u badan sababtuna waxay ahayd ciyaarta iyo buuqa iyo xamaasadda oo aad kor ugu kacday iyo dadkii xafladda ka soo qayb galay oo aad u soo batay dhawaaqi iyo buuqi sawaxanka iyo dhawaaqa dhacaya waxaad u malaynaysaa inuu guriga laftirkiisu ciyaarayo oo boodboodayo arrinta kale ka sii la yaabka badan ee kooxdani ka sii cabsiisay ayaa waxay ahayd ummadihii meesha isugu yimid markii ay sidaas korkooda u fiiriyeen waa gabdho iyo rag iyo caruur dad iska caadi oo iska baashaalaya oo iska ciyaaraya hase ahaatee waxay u fiirsadeen dhinacooda hoose lugaha waxay arkeen wax aad uga yaabiyay oo aanay weligood arag dadkani meesha isugu yimid waa dad caadi ah hase ahaatee lugahoodii markii sidaas u fiiriyeen waxa way arkeen ayagoo aanay dadkani lahayn cagaha ibni aadamka bedelkiisana ay leeyihiin cagaha xoolaha oo kale sida kuwa adhiga iyo kuwa dameeraha oo kale
بالله كوحدي فنانين تاهيد ayaa is wada fiirisay Nuura ayay fiiriyeen oo heesaysay oo ayada laftirkeedu hawshan la socoto indhaha taagtaagayso cabsi fara badan ay indhaheeda ka muuqdaan sababtuna waxay tahay jinku si kasta oo isugu dayo inuu aadanaha isu ekeysiiyo waxa kaliya aad u bedeli karin wacagihiisa kooxdani markay ummadan sidaas u fiiriyeen waa dad iska caadi ah korkooda sare waa gabdho nuur fara badan oo ka muuqdo hase haatee xaggooda hoose markay sidaas u fiiriyeen waa xoolo ummadan lugay xoolaha ku yaala kooxdii fanaaniinta ahayd cabsi fara badan ayaa soo food saartay waxay bilaabeen inay dhididaan ay xataa heesihii qalqaldaan ay mararka qaar isla dhaafiyaan qalabyadii ay garaacayeen ee muusikada kooxdii ayaa mid waliba waxay sidaadan niyoon ma adiga ayagu wax ka qaldan yahay way is wada fiiriyeen indhaha ay ka wada hadleen bil macna mid waliba waxay isku dayay inuu qofkani kale isha kala hadlo oo sidaado meela qabtaa waxaan arkayo mise xamaasadii murqaanka asagura qaldan indhaha soo hordhigaya haddaba fanaanadii Nuura ayaa markii aragtay inay xaaladii soo xumaanayso kooxdeedina ay indhahooda ka muuqdaan cabsi aad u fara badan ayaa waxay bilowday inay cabsidii isdhaafiso codka kor u qaaday dhawaaqdaba kooxdeedina ay shakala hadashay ku amarto inay kor u qaadaan waxay garaacayeen dhawaajiyaan kooxdii fanaaniinta ahayd ayaa soo wada fahmay waxaana isku dayeen in aan laga dareemin cabsida hore ayaanay u sii wadeen muusigoodii heesahoodii hase ahaatee gabadh kamid ah kooxdii ayaa u dul qaadan weyday waxay arkaysay khalkhal aad u fara badan ayaa gabadhii soo food saaray indhaha ayay taagtaagtay dhidid fara badan ayaa ka soo daatay gabadhii heer waxay gaadhay ay xataa dadkii martida loo ahaa ay isku dayaan inay gabadhii balla hadlaan ay dejiyaan balse fanaanadii Nuura ayaa waxay ku tiraahdaa maya iska daaya iska caadi anaga isfahmayna way xishood badan tahay iska daaya Nuura ayaa gabadhii gacanta qabato xoogay meesha kale yar dhax baxday oo si hoos oo la hadashay oo tiri niyahay nice tijina meesha hanigu ka shifin dulqaad muuji wax yar baa inoo dhiman xoogay kadib meesha oo siga baxaynaa ee dulqaado deetana gabadhii ayaa Nuura waxay ku tiraahdaa waxaan ii muuqda adiguna meela aragtaa mise waa indhahayga deetana Nuura ayaa waxay ugu jawaabtaa ha waan ognahay dhamaantay waan la soconaa waxa meeshan ka dhacaya qolyahani aynu maanta martida u nahay waa jin gabadhii ayaa argagaxday oo tiraahday jin oo markaa maxay noo xala caawaynu baabaayna Nuura ayaa deetana waxay ku tiraahdaa maya waxaas ma dhacayaan isteji shaydaanka iska naar wax yar baa inoo dhiman bal isku day inay asadkay sidoo xafladan si degan uga farxalano uga baxno ayadoo aanay qolyahana naga dareemin cabsi sababtoo ah haddii ay ogaadaan inaynu fahanay dhibaatooyin aad u waaweyn ayayna gaarsiin karaan gabadha isteji gabadhii ayaa fahantay kooxdii ayaana ku soo dhaxlaabteen hore ayaana sii wadeen muusiga iyo heesihii haddaba muddo yar kadib waxa dhacday arrintii ugu la yaab ka badnayd markii uu dhawaaday aadaankii salaada subax ayaa kooxdan iyo hawshoodii iska wata oo heesay oo xafladii wada hal mar waxa isbedelay jawigii korontadii ayaa gooday oo hal mar dhulkii waxa uu noqday mugdi iftiinkii iyo kaahi baxay hal mar waxa isu bedelay midab sidoo kale kooxdii waxa hal mar dhagahoodii ka baxay buuqi iyo sawaxankii iyo qayladii meesha ka dhacaysay dadkii buuqayay ee saaxibka dumayay ee meesha ka dhex buuxay hal mar ayay wax sanqadha ka waayeen deetana kooxdii fanaaniinta ahayd ayaa waxay ogaadeen cidii ay caawa oo dhan madadaalinayeen ay xafladooda u kala kicinayeen inay ahaayeenba jin gurigii weynaa waa cidlo kooxdii fanaaniinta ahayd oo kaliya ayaa isku soo hadhay hal mar deetana kooxdii ayaa hal mar waxay bilaabeen sawaxan iyo qaylo kooxdii fanaaniinta ahayd ayaa waxay isqabsaday buuqoodii iyo dhawaaqoodii hase ahaatee Nuura oo kooxdeeda ka qalbi adkayd ayaa ayadii waxay gashay shib waa istejisay niyadda ayaa ka akhriday quraanka deetana kooxdii fanaaniinta ahayd ayaa si degan oo la hadashay istejiya shaydaanka iska naara dhawaaq iyo qaylo waxba inooma tarayaan isfahano mugdigii goobta waxa dheer jawigii oo hal mar isbedelay waxa ay dareemeen qabow zaa'id ah jawigu markii hore diirimaad ayuu ku jiray oo dadkii oo dhan way dhididayeen hase ahaatee waxa isu bedelay hal mar qabow heer kooxdii fanaaniinta ahayd farahoodii uu noqdo qabow zaa'id ah deetana Nuura iyo kooxdeedii waxay ku heshiiyeen inay meesha sida ugu dhaqsiyaha badan isaga cararaan alaabtii siteen intii qaadan karayaan ay qaataan wixii ka tagayaan ay isaga tagaan sidii ayaa dhacday oo gurigii way isaga soo baxeen balse gurigii markii ay isaga soo baxeen xoogay waxa arkeen dhulkii oo yara iftiimaya yacni subaxii soo dhow yacni waqtigu waxa uu ahaa xilli waa beriya markii ka soo baxeen gurigii ayaa kooxdii waxay arkeen nin oday ah oo ag taagnaa guriga garabkiisa deetana Nuura u maleynaysay inuu ka mid yahay dadkii arooska u soo dirsaday ayaa ku soo carartay oo ku qayliday oo tiri waa maxay habkani foosha xuneed noola dhaqmaysaan xaflad aroos baad noogu yeedhateen markii aan idin kala kicinayna aayar baad nooga baxsanaysaan odaygii ayaa deetana waxa uu ku jawaabaa adeer waa maxay waxaanad ka sheekaynaysaan idinmaan fahminbe deetana waxay tiraahdaa Nuura oo miyaad maqlayn caawa oo dhan xafladii iyo buuqii dhacaya gurigan gudihiisa odaygii ayaa waxa uu ugu jawaabaa gurigu waa kii adeer Nuura ayaa gurigii farta ugu fiiqday oo tiraahdaa gurigan balse gurigii Nuura markii sidaas u fiiriso ayada lafteedii waxa ku dhaca amanka muuqaalka gurigu waaba mid ka duwan midkii xalay ku arkayeen waa guri u muuqda inuu yahay guri qadiim ah oo aan cidnaba ku noolayn odaygii ayaa deetana waxa ku yiraahdaa adeer gurigani waa guri 10 sano ka hor laga guuray 10 sano ayaa ugu dambeysay inuu ibn aadamku raad galiyo gurigan yaab ayaa ku dhaca Nuura gurigii ayay dib ugu noqotaa fiirisay albaabka horteeda balse ugu yaraan u aragto ummadii xalay isugu yimid raadkooda iyo gawaaridii aad ka tirada badnayd ee tunaa albaabka guriga hortooda
balse fajaca kooxdani ku dhacay gurigii horteeda kamaanay arag wax raad ah koodii mooyaane raad ibni aadan baanay arag walaa raad xoolayn arag xataa gawaarida meeshii la soo istaajiyay taayiradoodii maanay arag odaygii ayaa markii uu sidaasi u fiiriyay 7 qof dhammaantood inay arrintani ka siman yihiin waxa uu sidii hal qof haddii uu ahaan lahaa waxaan odhan lahaa waa qof ay balaayo kale usan qadhowna ismoodiyey balse arrintani haddii aad dhammaantiin isku wada raacdeen waa wax jira gurigan waxaa weligiiba lagu xaman jiray inay degan yihiin qolyo jimalah dadkuna way ka cabsoodaan oo kuma dhawaadaanba xataa qoyskii deganaa 10 sano ka hor ayay uga guureen arrintaasi darteed nuuriya tiimkeedii cabsi waxay bilaabeen inay meesha isaga yaacaan jiman baynu ciyaarsiinay meeshii isaga yaacaba ka dhacday haddaba saaxiibayaal qisadani halkaasi ayay ku eg tahay waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid qisadani ma runbaa mise waa mid lagala soo baxay jeebka dambe horta ilaahay baa og oo anigu ma odhan karo 100% waa run waa xaqiiq oo siday arrintani idiin soo gaadhay unbay anigana ii soo gaadhay hase ahaatee arrintaasi inay run tahay waxa isku raacay 7 xubnood ee fanaaniinta ahaa ayaa mid waliba markhaati furay inay run tahay indhihiisana uu ku arkay arrintani aynu ka soo sheekaynay horta alxamdulillah kooxdii wax dhibaato umaanu geysan ayagoo caafimaad qaba ayaa meesha isaga soo tegeen balse waxa ku dhacay sas iyo cabsi aad u badan ummaday xalay oo dhan u tumeeyeen ay xafladda u kala kicinayeen ayuunbaa hal mar gas u tiriyo sidii TV hal mar la damiyo kale indhahoodii ay uga baxeen ugu dambeyn saaxiibayaal muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar wixii qisadan kaaga baxayna dhinaca hoose ee commentiga nagula wadaag intaynu muuqaalada xigay isugu iman doonaba waxaan kaga tegayaa sidaas iyo ammaano Allah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh